kulan ay isugu yimaadeen suxufiyiinta qurba joogga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya isla markaana ay ku dooranayeen guddoon cusub maadaama mas'uuliyiintii ururkii hore ee qurba joogga Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ay waddanka Kenya ka dhoofeen ayaa kulankaasi waxaa ka soo qayb galay culimaadudiin waxgarad aqoon-yahano iyo waliba suxufiyiin aad u tiro badan kuwaas oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi. kulanka oo laga soo jeediyay hadallo kooban oo dhiirigelina ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahayd oo barbar socotay tartan ay ku loolamayeen Cabdiqafaar Axmed Shire iyo Aadan Kismaayo oo labaduba ka tirsan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya ayaa waxaa markii dambe ay guushu raacday kadib markii codayn si xalaal ah loo sameeyay Cabdiqafaar Axmed Shire oo kamid ah suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi waxaana loo doortay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta dibad joogga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxaa sidoo kale munaasabadu markii ay soo gabagabowday u hambaliyay gudoomiyaha la doortay murashixii laga guuleystay ee Aadan Kismaayo waxaana munaasabada hadalla ka jeediyay suxufiyiin rugcadayaal ah iyo sidoo kale marti sharaf kale oo goobta ka soo qayb gashay oo ay kamid ahaayeen culimaadudiin iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ayaan lahayn muddooyinkii ugu dambeeyay urur isku xidha kaas oo u qareema isla markaasna xuquuqdooda uga soo dhiciya hay'adaha iyo wadamada ay arrintoodu khusayso waxaana waxyaabaha sida weyn ay Soomaalidu suxufiyiinta ah ee Kenya ku sugan ay ugu baahan yihiin kamid ah sharciyo ay ku shaqeeyaan. Maxamed Axmed Ilka Case, telefishinka qaranka, Nairobi.